iyagoo wajiyadooda laga dheehan karay siday ugu faraxsan yihiin in xubin iyaga ka mid ahaa uu maanta isagoo haybad qaran huwan soo dhoweeyaan ayaa qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee Cape Town waxay si habsami leh uga hortageen gudoomiyaha degmada Garasbaaley Mudane Ibraahim Colow Maxamed oo saacado ka hor soo gaaray magaala xeebta Cape Town ee dalkan Koonfur Afrika iyagoo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka ayaa qaar ka mid ah dadkii halkaasi ka hadlay waxa kelmadahoodii ka mid ahaa Assalaamu alaykum gudoomiye dadkan waa dadkii jaaliyadda Soomaaliyeed oo u taagan soo dhaweyntaada kuna faraxsan imaadkaaga ilaa shalay ilaa maanta soo dhaweyntaada u taagan yihiin kii aan joogina teleefanku ka fiirsay oo haya oo usna waa warqabiya waa la wada gaarsiiyay ku soo dhawaaw jaaliyadda walaalaha dhalinyarada Soomaaliyeed kulli aday heegan ku yihiin aduguna adaa wixii warbixinahoodu dalka iyo dadka uga wada ku warbixi doona baha saxaafadda haweenka olomaadinka akhyaarta ka soo qaybgalayaasha kulligood waa idin salaamay salaanka bacdi waxaan leenahay soo dhawow gudoomiyaheena degmada Garasbaaley Ibraahim Colow waxaan leenahay Ibraahim soo dhaweyntaada maanta u taaganahay ilaa saakay dadku waxay u taagnaayeen sidii ku soo dhaweeyeen waana aragtaa sidii dadka ku soo dhaweeyeen waxaan leenahay nin dhalinyaro oo maaragtay wax qabadkiisu ka warhayna tahay dadkaaga iyo dalkaaga labaad ku soo dhawow gudoomiyaha degmada Garasbaaley Masar Ibraahim sidoo kale odayaasha dhaqanka gabdhaheena dhalinyaradeenna ganacsatada culimada waxaan ku salaam boqolkiiba afarta quraan kariimka wassalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala barakaatuh bacda taxiya shalay waxaad ahayd nin naga mid ah anaga waxaad go'aan ku qaadatay in dalkaaga uu ku baahan yahay waxaad baxday adigoo anaga naga mid ah bariga laakiin waxaad soo noqotay adigoo haybad qaran hugan oo mas'uuliyad ku saaran tahay Soomaaliya waxay jireen in xil qaaday eed qaad marka waxaan leenahay aad iyo aadan kugu hambalyeynaa waxaan ku leenahay ku soo dhawow Cape Town shalay ka tagtay walaalaha iyo jaaliyadda Soomaaliyeed anagoo wakiilka ah waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow Cape Town ku leenahay waxaan maanta soo dhaweynaa walaalkay aan soo dhaweey South Africa gaar ahaan Cape Town gudoomiyaha degmada Garasbaaley Ibraahim soo dhawow walaalkay waxaan ogsoonahay degmada Garasbaaley waxay noogu fadhidaa taariikh weyn ay noogu fadhidaa waxa iyadoon degmada aysan ahayn waxa u soo halgamay rag badan oo nooga shahiideen oo ka mid yahay adeerkay geedi fadhiya Allah u naxariisto garyare bidaar rag badan aan nooga shahiiday maanta waxa nasiib u yeeshay iyadoo gudoomiye degmo rasmi ay tahay walaalkay marna saaxiibkay Ibraahim Colow waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawaaw mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan isugu nimiday soo dhaweynta gudoomiyaha Ibraahim Colow halkan maanta runtii waxaan leenahay aad ayaan uga faraxsanahay gudoomiye inaad halkan nagu soo booqato farxad weyn ay noo tahay waxaan is leenahay ama aad adiguna garan kartaa dadkaanu meelaha isaga yimideen Cape Town International Airport iyo dadkaanu meeshay degan yihiin isma lahan dhul fogay ka yimideen dawlad jacaylay meeshaan isugu yimideen waxaan aad ugu faraxsanahay degmada Curdunka ee haddii Allah ku soo korortay gobolka Banaadir degmadii kamid ahayd ee Garasbaaley gudoomiyaheeda inuu halkaan nagu soo booqdo aad aan ugu faraxsanahay waa ku soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol soo dhawaawaan ku leenahay gudoomiyaha degmada Garasbaaley Mudane Ibraahim Colow oo isaguna foolkiisa ay farxad qarisay ayaa sidan u qiira hadlay waa maasantihiin akhyaarta dhalinyarada haweenka dhamaan bahda reer Cape Town aad u salaama horta aniga waxaan kamid ahay jaaliyadda dalkii aan dib ugu laabtay ma ahi qof ku cusub meeshan waan ogahay maanta qof South Africa joogo oo saaka inta soo istaagay waxa laga yaabaa qaarkiin oo baawurtu u baakiman yahay location u raran yihiin marka idin daahimaayo waa sheekaysanaynaa waa wada joognaa aadaan idinkaga mahadcelinaa waqtiga iyo jaaniska ay siiseen wariye Indo Goobjoog TV Cape Town Koonfur Afrika